بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصحابتي يوتيوب سو دوادا. maanta waxaan doonayaa inaan idin la wadaago website kaasoo ah ama ka caawinaya ku dhawaaqida kelmad cusub oo markaan kelmad horaan hore garanayn adoonsan sida loogu dhawaaqayo ayuu ka caawinayaa. marka masalan haddaad kelmad cusub aad aragtay oo aan sida loogu dhawaaqo ama dadka ku dhashay kelmadaas sida ugu dhawaaqaan aanad aqoon, waxa uu horeeyaa la sameeyaa waxa weeye inaad Google ka gashid oo dabeetana aad halkaa ka dhageysatid sida loogu dhawaaqayo iyadoo computer kugu dhawaaqayo ama dictionary kale aad gashid oo codka halkaa ka dhageysatid. marka dhawaaqistaasu iyo dhawaaqista dadka u dhashay sin ogsoonahay way kala duwan tahay. waxa marka iminka Google ka gashid oo kale waxa kugu dhawaaqaya waxa weeye computer. marka website-kan wuxuu ka caawinayaa kelmadaan garanayn dhawaaqisteeda sida loogu dhawaaqo dadka ugu dhashay u dhawaaqaan. marka website-kan iminka galeynaa soo socon. website magaciisa waxa la yiraahdaa English ama English labadaba waad ku search garan kartaa. marka English kaas iminka ku search gareynaa waa kan inoo soo baxay. marka masalan waxaan ku tijaabinaynaa kala kelmadda computer oo kale. computer waxaan ka sayid si loogu dhawaaqayo in doonayna inaan eegno. marka markii wuxuu soo saarayaa muuqaal YouTube. This record is replicated on every computer that uses the network. waliba barnaamijkan wuxuu leeyahay lahjadaha kale. iminka halkan waxay noo soo saarayaa US kii oo ku soo saaraya UK iyo Australia saddexda accent si loogu dhawaaqayo ayaad kulba ka doonaysid baad geysan kartaa. marka iminka waxaan geenaa bal accent-ka British ku soo dhawaaqan. It is adapted a tablet computer into the cardio pad. marka iminka waxaan doonaynaa kelmad kale oo kale in iskaga tijaabino. waxaan ku tijaabinaynaa book oo kale say idin markaa oranayna not that I didn't like it. marka wuxuu ku soo saarayaa muuqaal. It's a tragedy that not every business person's read a $5 book by a man. qof wuxuu ku soo saarayaa qof u dhashay luqadan sidoo ugu dhawaaqayo oo taasoo rahantii aan aaminsanahay inay qofka doonaya inuu luqad cusub barto muhiimadu tahay si uu u canjilo ama uga daba idhaaha kelmadii oo kale. iminka book laftarkiisa ku tijaabinaynaa lahjada kale. marka accent-kan iminka British markaasna ku tijaabinaynaa. Not that I didn't like it. I intensely enjoy the work of writing a book. marka waxa Australian kan ku tijaabinayno hal mar. One of the heroes in my book, and in fact in my life, is a doctor named Sam Everington. He's a general practitioner in a poor part of East London where I lived for many years. marka waa ka asxaabay website-ku waa kan. marka waxaad rajaynayaa insha Allah inaad sii barbaari kartaan. halkan oo kale waxaad ka sii dooran kartaa luqadyo kale Isbaanishkii, Talyaanigii. marka kulba luqadii aad doonaysid inaad barato ayuu waxaad sameynaysaa ama isla garanaysaa dabeetana kelmadda doonaysid sida loogu dhawaaqayo ama hore qoon kale ayaad search garanaysaa. asxaabi intaasaan iminka barnaamijkeedin ku keenayaa. waxaan rajaynayaa inaad idinkuna sii barbaari doontaan website-kan. kulli ruuxantii aniga way cajabiyay oo masalan kelmadda aanan hore garanayn oo kale Google-ha ayaan ka dhageysan jiray aan ku dhufan jiray codkiisa. marka computer baa kugu dhawaaqaya. laakiin marka qofkii luqadda u dhashay iyo computerku aad bay farqi weyn baa kala dhaxeeya. idinkuna waxaan rajaynayaa inaad arki doontaan. marka intaasaan maanta jecelaystay inaan idin la wadaago. aad iyo aad baad mahadsantihiin.